xaaladda degdega ah ee gobolka Sanaag maxay daaran tahay? maxaa loo xidhay marxuumkii xabsiga Ceerigaaba ku geeriyooday isagoon wax dambiye lahayn? sidee marxuumkaasi u dhintay? ma dhaba in xabsiga lagu sumeeyay? sidee loo dilay saraakiishii ciidan ee degmada Garcadag kadiba ay ka fakadeen Garcadag oo Ceelaf Weyn tageen? sidee iyagoo warkooda amni lahayo keligood loo diray barasaabka iyo maamulka gobolka Sanaag oo Ceelaf Weyn ku sugan kolkii ay la kulmeen maxaa xukuumaddu isaga dhaga tirtay in la badbaadiyo ilaa ay Burco ka gaadhayaan? fariimii cabsiyeed ee saraakiisha mootani u kala direen arrimaha gudaha madaxtooyada iyo taliyayaasha ciidamada maxaa looga soo jawaabi waayay? barasaabka Sanaag yaa ku kalifay inuu taliyayaasha la laayay ku wargeliyo inay subaxnimo hore jarmaadaan xaaladuna caadi tahay cabsina aanay jirin? dabadeed yaa bixiyay xogta safarkooda? yaa keenay in jidgooyo loo galo? haddiiba xukuumadda mooyaane cid kale jarmaadadooda safar war ka hayn, waayo cidda wargelisay eheladii marxuumka? waddada saraakiisha mootani mareen mabay ahayn tariiq toose? yaa u sheegay dablada laysay jidkii sirta ahaa ee Burco ku ridaayay taliyayaasha laga takhallusay? haddii shalay deegaanada gobolka Sool hal maalin 100 ruux qudha lagaga jaray misna aan lagu soo rogin xaalad degdega loo garniqin beelihii islaayay ciidamadii kala dhex yiila laga dhex qaaday, maxaa sababay in Sanaag lagu soo rogo xaalad degdega? Ceelaf Weyn 3 sannadood oo isxigaha haddii ay ka qiiqaysay xaalado colaade si loo damiyo maxay u keeni weyday xaalad degdeg oo lagu soo rogo? inkastoo saraakiil la laayaa waxshinimo tahay, naf la gooyaa ay jariimo tahay, Somaliland saraakiil la gumaadaa kuma cusbee. maxaa gobolka Saaxil taliyay qaybta booliska Cabdirasaaq Casayr xilligii la dilay xaalad degdeg iska daayay hal habeen bandoo loogu soo rogi waayay? hore ayaa Somaliland dhexdeeda 19 sarkaal loogu dhex khaarajiyay oo ma ay dhicin tan oo kale. waa maxay sirta ku hoos tuugan ee geerida saraakiishan loogu soo dhuuntay? haddiiba labada sarkaal la badbaadin karaayay oo aan la badbaadin haba dhinteena haddii ciidan lagu dari karaayay oonse lagu darin yaanse lagu darine haddii dariiqa ay marayeen dawladdu qarin karaysay oo aanay qarin maxaa diiday in la yidhaahdo dilka saraakiisha geerida marxuumka xabsiga ku galay iyo xaaladda degdeg ah waa qorshe dhagaraysan oo ay ka fursan weyday in dad nool loo shirqoolo si uu hirgalo? ka hor dhismihii waddada Ceel Daahir ayaa ciidamo lagu horgooyay oo saldhig Baayube laga fuliyay. isla wax yar kadib waxaa Ceerigaaba laga joojiyay mashruucii GPLG. hore waxaa loo laalay oo la joojiyay dhaqaalihii sanduuqa SDF ugu deeqday dhismaha dekedda Maydh. dhaqaalihii abaaruhu ma gaadhin. xaaladda gobolku way cakiran tahay. intaasoo isdultiil Sanaag waxaa loogu sii daray xaalad degdeg ah. dadweynuhu waxay isweydiinayaan gobolka Sanaag ma Somaliland baa u baahan mise Sanaag baa Somaliland u baahan?